fiiriya waxay samaysay haweeneyda markuu soo weerar libaax ayadoo dukanaysa waa mucjiso aad u weyn subhanallah balse intaanan bilaabin ka hor ha hilmaamin inaad nagu soo biirto oo subscribe saarto waxaynu arkaynaa muuqaalada aynu daawan iyo qisooyinkaba taasoo ku xambaaraysa kuwa dukanaya salaada dhib iyo shar oo imaanayo intay cibaadada iyo salaada ay ku jiraan muuqaalkan waxaynu ku ogaan doonaa sayidad oo salaadeeda ku dukanaysa mid ka mid ah keemanka ayadoo ku jirta safarkeeda kadib waxay horteeda ka aragtay libaax mana malaysan kartid wax ku dhici doono nala soco qisadani saad u ogaato wax badan qisada bilowgeed sayidadan waxay ahayd safiir ka shaqeyso mid ka mid ah dawladaha Afrika waxayna ahayd mid si joogto ah u safarta intay ku guda jirto wareegeeda Afrika waxay ahayd mid u dhow mid ka mid ah keemanka waqtigaasina waxay ahayd xilliga salaada ayadana waxay la qabsatay inay salaada ku dukato waqtigeeda inaysan dhaafsiinin salaada waqtigeeda si kasto ay danta u qasabto waxay raadisay meel ku haboon salaada meel u dhow mid ka mid ah keemankaas waxay gulugashay inay raadiso meel aamin ah si ay u gudato salaada maxaa yeelay iyadu waa dumar ee ma ahan nin sidaas darteeda waxaa qasab ku ah inay raadiso meel aamin ah aysan ku arkaynin salaadeeda qofna dhab ahaantii waxay raadisay meel waxayna heshay meel degan qofna aanan ku arkaynin gabi ahaanba dhab ahaantii haweeneyda waxay bilowday salaadeeda waqtigaasi waxa ahaaday qof dhalinyaro ah oo meel fog ah ka ilaalinayay marka uu la yaabay go'aankeeda salaada iyo meesha ay raadisay wuxuu gudagalay inuu ilaaliyo daqiiqadooyin kadib waxaa dhacay shay cajiib ah aan weligiisa qofna ku dhicin marka ay sujuudeedii ka soo kacday waxay horteeda ka aragtay libaax weyn oo isku dayay inuu u soo dhawaado wuxuu u jiray masaafo la eg ilaa 5 mitir haweeneydu way ka argagaxday libaaxaas balse salaadeeda ayay iska sii wadatay waxay isdhahday haday wax dhacaan oo ku soo weeraro libaaxan waad garanaysaa meesha aad ku leedahay aakhiro masiirkaagina wuxuu ahaan doonaa janno intay salaada ku guda jirto waxay ahayd mid fiirisa libaaxa si ay u aragto wuxuu sameyn doono libaaxa wuxuu ahaa mid u soo dhawaado tilaabooyin yar yar ilaa aysan ka fakanin asiga si ay ugu noqoto waxa uu gaarsado oo cuno laakiin haweeneydu waxay ahayd mid iska sii dhameystirato salaadeeda mana danaynaynin libaaxa gabi ahaanba maxaa yeelay arrinkeeda oo dhan waxay ugu tagtay Allah azza wajal waxay u istaagtay inay barido Allah si ugu fogeeyo libaaxa arrinkeeda markay salaada dhameysay waxay aragtay libaaxa oo u dhow waxaa dhacay arrin mucjiso Ilaahay agtiisa ka ahaatay wuxuu ahaa wiilkii ilaalinaya ayaa wuxuu rasaas ku furay libaaxa ilaa uu ka fogeeyay sayidadii dhab ahaantii markii rasaas lagu furay kadib libaaxii uu ka fogaaday wuuna cararay sidaan ayuu Ilaahay ugu badbaadiyay haweeneydii geeridii la xaqiijiyay markaas kadib wiilkii ayaa uu sheekayay inuu la socday ayada maxaa yeelay wuxuu doonayay inuu Ilaahay ugu dhawaado sababtoo ilaalinayay darteeda wuxuu ka badbaadiyay geeri waad ku mahadsantahay daawashadaadii haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe dheh gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan wax walba aan soo dhigna durbadiiba haddii aad horey nala joogtayna like saar oo la wadaag asxaabtaadii kuna soo qor fikirkaaga fiican qaybta hoose ee kommentiyada mahadsanid